عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. On the authority of Abu Hurairah radiyallahu anhu, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam say: what I have forbidden for you, avoid. What I have ordered you to do, do as much of it as you can. For verily, it was only the excessive questioning and their disagreeing with their prophets that destroyed the nations who were before you. Narrated by Bukhari and Muslim. waxaa laga wariyey Abu Hurayra Cabdirahmaan bin Sakhar, Allah ha ka raali noqdee, wuxuu yidhi: waxaan maqlay rasuulkii Allah sallallahu alayhi wasallam oo leh: wixii aan idinka reebay ka fogaada, wixii aan idin farayna intii karaankiina ah ka sameeya. kuwii idinka horreeyey waxaa u halaagsameen su'aaladooda badan iyo khilaafkii ka qabeen nebiyadooda. Bukhari iyo Muslim baa wariyey.